وإن هذا إسماعيل وعاصمة جمهورية سوماليلاند هرقيسة إذن كلا صهد ليس waxaan doonayaa inaan shacabweynaha la qaybsado farxadda iyo warka wanaagsan ee Soomaaliland u soo kordhay waxaan hubaa in marar badan waxyaabo inaga naxiya waxyaabo inaan jeclaysan waxyaabo aan dhigteena u wanaagsanayn mustaqbalkeena u wanaagsanayn in shacabweynaha la soo gaarsiiyo markase ay jirto wax guul iyo sharaf u soo hoynaya dalkeena iyo ummadeena Soomaaliland waxa waajib nagu ah inaan ummadda nalaano qul alxamdulillah bushaaro wanaagsan iyo war wanaagsan ayaa maanta Soomaaliland u soo kordhay saad ula socotaan maalmihiina soo dhaafay bisha 28 iyo 29 waxaa dalka Djibouti aynu jaarka nahay ilaahay mahadiya ka gaadhay suuro galay inaanu wada hadallo yeelano dalka aynu jaarka nahay ee walaalaha nahay ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa horta mahad weyn isaguna mudan madaxweynaha dalka Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale haddana gogol u fidiyay gogol suuro gelisa in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland iyo wufuudii ay wateenba ay wada hadal yeeshaan dib u eegaan heshiisyadii hore la gaaray iyo sidii loo amaqaadi lahaa wada hadallada iyo xiriirka iyo nabadeynta mantaqadan aynu deganahay طبعا qodobada lagu heshiiyay ee la saxeexay mudan Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle marxaati ka ahaa adduunkana marxaati ka ahaa labada madaxweyne ay wada saxeexeen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waa la idin la qaybsaday oo baraha bulshada ay ku jiraan laakiin nuxurkoodu waa maxay horta dalal badan oo adduunka ka jira ayaa iyaga oo xora oo xornimadooda kala haysta oo mustacmaradii kala haysatay ka xoroobay go'aansaday inay heshiiyaan oo ay midoobaan oo ay danahooda meel isugu keenaan dalal badan Senegal Zambia maxaan ku raraa Gambia Suuriya Masar dalal badan baa jira Ethiopia Eritrea haddana waxaa jira qaar midowga ay midoobeen sida Yurub iyo gobolada Mareykanka waa gobollo midoobay qaar way waaraan oo way jiraan oo sidii loogu talagalay labada dhinacba ay ka rabeen ama ummadihii midoobay ay ka rabeen ay u socdaan oo u suura galaan oo tabeetana halkaasay jiritaanku dalkaas ka sii socda waxaa jira qaar haddana sidii ay labada dhinac ka rabeen noqon waaya oo tabeetana ay ku heshiiyaan inay kala tagaan markay kala tagaan colaad kuma kala tagaan heshiis bay ku kala tagaan tabeetana jaarnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo maxaan ku dhahay wixii ka wada dhaxeeyay way sii wataan Senegal iyo Zambia ha kala tageen may ciloobin jaarnimadoodii iyo wax wada qabsigoodii waa halkiisii dalal badan oo Yurub dhawaan waa kuwii waxa kala tagay dhowr iyo 10 jamhuuriyadood oo ka soo go'ay Ruushka midba hawlaheeda way wadataa haddana way wada xiriiraan way wada shaqaystaan wixii dan caam u ah meel bay uga soo wada jeesadaan haddana maamulkooda daaqliga ah ayay wataan Somaliland iyo Soomaaliya oo Somaliland ahayd
curadkii Soomaalida dalkii ugu horeeyay xornimadiisa qaatay 26 Juun dalkii labaadna uu noqday jamhuuriyadda Soomaaliya ee markaa jirtay waxay ku heshiiyeen walaalowno dad isku mid ah dad waxyaabo badan ka dhaxeeyaan dad meel wada degan dad danahoodu ay isku mid yihiin aan walaalowno ay ku heshiiyeen waanay walaaloobeen waxaase yimid duruufo dhibaatooyin dhibgeliyey wada noolaanshihii waxay taasu keentay dagaal waxay keentay burbur waxay keentay dhibaato waxay keentay dhimasho waxay keentay foolxumooyin badan oo la isu geystay markii dambena 1991kii Somaliland inteedii ay Ingiriiska ka dhaxashay ee ay deganayd xuduudihii caalamiga ahaa ee ka diiwaan gashanaa qaramada midoobay ee markii horena ay deganayd intaan Ingiriisku iman markii dambena Ingiriiskuna halkii uu ugu yimid ayuu haddana ay ku kala tageen xuduudihii la dhigay xuduud caalami ah oo anaguna ma bedeli karo cid kale ma bedeli karto ayay Somaliland halkeedii ku noqotay ummadeedii ayay markaa dhisatay dadkeedii bay soo ceshatay miinadii bay iska gurtay dadkii maatadii hadhay bay isu keentay magaalooyinkeedii bay dhisatay nidaam dawliya bay samaysatay dastuur bay samaysatay madaxdii baa isu timid shicibkii baa gacan ka geystay baayac mushtarkii baa gacan weyn ka sii geystay inteennii aynu dhaxalay ee aynu xoreysanay ayaynu dhisanay waxaynu gaadhsiinay Somaliland meel nidaamkeeda dawliga ah doorashooyin xisbiyo afti dadkeenii ka qaadnay 90% ay yiraahdeen waxaanu ayidsanahay dastuurkeena iyo inaanu ka go'no Soomaaliya goobjoogyaal ahaa ajnabi baa joogay markhaatiyaal bay lahayd ma sha Allah waxay noqotay Somaliland dalkii ugu horeeyay ee labadii dhinac ee kala go'ay Soomaaliya Somaliland ay ka suura gashay in afti ka dhacdo markii dambe doorashooyinkii taxanaha ahaa ee aad wada markhaatiga ka tihiin wada codayseen ee aad salaadii u soo kalahdeen ee aad u soo gasheen safka dheer u soo gasheen si aad u codaysaan oo dabeetana farta u dartaan oo tustaan waan soo codeeyay waatii 100,000 ay codeeyeen ee aanay mar ahayn ay dhowr jeer 5 jeer 6 jeer 7 jeer ee codayseen shicib weynu aynu codaynay shicib weynu alxamdulillah weli taasi kama ay suura gelin dalkii aynu ka soo go'nay laakiin Somaliland way ka suura gashay waa guulaha wanaagsan ee quruxda leh ku dayashada mudan rajaynaynana inay meelaha kale Soomaalidu degan tahay iyana horumarka Somaliland samaysay oo kale in nabadgelyada Somaliland leedahay oo kale iyaguna ma ayoomka ayaam yeeshaan ugu ducaynayna la jecel lahay wanaag baan la jecel lahay deganaanshaan la jecel lahay waxa markaa taban ummad meel wada deganay way isqabataa gobol la isqabtaa laba isqabta sharikada isqabta yaraan iyo weynaanba dhalinyaro isqabata wala isqabtaa waxa markaa nasiib wanaaga in Somaliland ay leedahay nidaamkeeni soo jireenka ahaa ee dhaqankeena wanaagsan ku dhisnaa ee haddii khilaaf yimaado la dhexgali jiray oo la qaboojin jiray iminkana aad ugu mahadnaqaya khilaafkan yaray dhexdeena ah in haddana ay u kacday maxaan ku raayay madax dhaqameedyadii salaadiintii ay u kaceen oo ay gacanta ku hayaan oo ay haddana nidaamkii iyo nabadgelyadii ay gadaal weyn ugu jiraan si ay u soo celin lahaayeen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la qaybsado shicib weynaha jawigii wanaagsanaa ee wada hadaladii Djibouti ay ku dhaceen wuxuu ahaa jawi aynu wada shaqeyno wax wada qabsano wuxuu ahaa jawi beeraysa walaaltinimo
jawi beeraya wax wada qabsi, jawi beeraya ixtiraam labada dhinac ay isu hayaan, kalsooni beeraya in ummadaheenu ay wanaagii iyo wax wada qabsigii iyo jaarnimadii ay ilaashadaan, ku wada noolayn intaas dhowr iyo 30 sanadood baynu jaar ahayn markii xataa aynu kala go'nay shicibku ma ciloobin cadowgeed ma jirin bayaamisir ku yimaada bukaan ku yimaada ardaydu way timaadaa xaggaa waa la tagaa xaggan waa la yimaadaa meherado badan baa jira oo dad kale oo ka yimid Soomaaliya halkan ku leeyihiin meherado badan oo halkan ugu leeyahay xaggaa ka jira marka dadku inay wada shaqaystaan oo wixii wanaagsan wada dhistaan waa waajib annaguna doonayno inaan kobcino oo u baahan in la wada ilaaliyo marka qodobadii maanta dhaweytii lagu tashaday lagu heshiiyey waxay ahaayeen qodobo intii Soomaaliland doonaysay aynu heshiiska aanu ku galnay wax aanan Soomaaliland raalli ku ahayna aan meesha laga saxiixin in wax Soomaaliya aanay raalli ku ahayna iyana aanay saxiixin waxaanay raalli ka ahayna meesha aanay soo gelin marka waxay ahayd wax labada dhinacba dhaxo ah raalli ku nahay labadeeduba aanu aad iyo aad uga doodnay labada dhinacba aad uga doodeen labada dhinacba gaar iyo wada jir iyo si gaar ah aanu u wada qorsheynay u wada eegnay markii aanu ku qanacnayna aanu la nimid heshiiskaas wuxuu keenay kalsooni buu beeray way qodobada lagu heshiiyey in wada hadalada la sii wado in wada hadallo waxa weeyaan aynu hagaajino weeyaan aynu wada hadallo oo meel uga soo wada jeesano dhibaatooyinka ama dhexdeena ka dhalan kara ama mantaqada aynu deganahay geeska Afrika ka yaala kaba soo qaad la dagaalanka argagixisada waa shay aad u muhiim ah inaynu meel uga soo wada jeedno cidii aan wada hadallada aanu maanta heshiiska labada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ay wada galeen waa wax khuseynaya gobolada labada dal Somaliland goboladeedoo dhan waxay heshiiskaasu waa wax Somaliland raalli ku tahay goboladeedoo dhanna madaxweynihii ay u doorteen ayaa wakiil uga ah Soomaaliyana madaxweynaha federaalka ayaa wakiil uga wada ah haddii iyagu gobollo iyo maamul goboleedyo iyo ay kala leeyihiin iyagay u talaa waa waxyaabaha dakhliga ah weeyaan laakiin madaxweynaha federaalka ayaa wada matala madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Somaliland labadooda ummadood wada matala ayaa heshiiska wada galay oo heshiiska wada saxeexay markhaatina uu ka ahaa madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele marka cidii taa ka soo horjeeda طبعا dadbaa ka xun jiritaanka Somaliland horumarka Somaliland nabadgelyada Somaliland inay wax ka yiraahdaan طبعا waa laga filayay wada jiritaankaaga ayaa baanay jeclayn oo ay ka soo horjeedaan marka cidii dhibaatooyinka Somaliland la dhinaca Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya meel bay uga soo wada jeedaan in aan lagu heshiiyo in heshiisyadii hore ee la saxeexay ee 7 jeer hore la saxeexay ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku riday ceelka ku riday in laga soo saaro oo heshiisyada dib meeska loo saaro oo heshiisyadaas sidii loo hirgelin lahaa laga wada shaqeeyo Soomaaliya iyo Somaliland waa ay wada jir uga wada shaqeyso oo wixii heshiisyadaas ahaayeen ee ku saabsan deeqaha ama kaalmooyinka ka yimaada ama qaramada midoobay
ama dowladaha shisheeye in si siman oo cadaalada loogu qaybiyo labada dal Somaliland iyo Soomaaliya in hawadeena oo hore loogu heshiiyey Hargeysa laga maamuli jiray oo maalin kaliya madaxweynihii hore Soomaaliya uu yiri ma jirayso go'aanka keligii gaaray in halkoodii lagu soo celiyo laga wada hadlo sidii dib loogu xidhxidhi lahaa ee loogu hirgelin lahaa ee loogu suuragelin lahaa in Soomaaliyana hawadeeda ay ilaashato Soomaaliland hawadeeda ay ilaashato heshiisyo hore loo gaaray weeyaan in nidaamkii lagu hirgelin lahaa taas farsamooyinkii lagu hirgelin lahaa weeyaan waxa maanta laga hadlaya way heshiisyada hore madaxweynayaal ay u saxiixeen in wixii argagixisada ah aynu meel Soomaaliya iyo Somaliland ay meel uga soo wada jeedaan oo argagixiso aanay Somaliland ku soo dhex dhooman argagixisana Soomaaliya ku dhex dhooman oo aanu isaga hiilino aynu isdhaafsano wixii laga hortagi lahaa ee wax laga qaban lahaa in argagixiso dalkeena ay ku fido in wixii dhibaatooyin yimaadana lagu hirgeliyo lagu xalilo nidaamkeenii soo jireenka ahaa ee dhaqankeena ee qarniyadii ay ummadeenu jirtayba lagu xalili jiray ugu dambeyn in loo mahadnaqo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo haddana mar kale waqtigiisii iyo gogoshii fidiyay oo waqtigiisii u huray walaalaynta labada dal ee Soomaaliyeed in lagu haddana fursad loo siiyo lagu dhexdhexaadiyo ku wada hadlaan dalka Jamhuuriyadda aynu jaarkanahay ee Djibouti marka waa guul weyn oo Soomaaliland soo hoyatay baan leeyahay waxa in yari meelaha ka leedahay dadka aan horumarka Soomaaliland jeclayn ay ka leedahay shicib weynow dhagaw dhagana meel Soomaaliland lagu iibiyay Soomaaliland lagu iibiyayna markaati kama aanu ahayn wax Soomaaliland dhibaato u ahna saxiixid kama inaan qayb galin guul weyn weeyaan sharaf weyn weeyaan madaxa kor u taaga ku farxa guusha Somaliland soo hoyatay marka nabad ku seexda nabad ku toosa nabad ku jooga nabad ku dhis dalkeena magaceena sumcadeena waxaa yaryareen bulshada baraha bulshada waxaa ka xooweyn rabitaanka shicib weynaha ee nabadda jecel ee sharafta jecel ee magaca Somaliland ilaalintiisa u heegan waxaan doonayaa inaan u hambaliyeeyo farankeena dadka jooga dhaxantaa jooga jiilaal weeyaan caruurtoodii iyo reerahoodii guryahoodii ka yimid si ay u difaacaan dalkooda u difaacaan gardarro uga difaacaan haddana aan ugu mahadnaqayaa inay haddana urursanaantaas ay yeesheen iyo turitaanka ay u yeesheen shicibka waan ku ammaanaya waan ku mahadnaqayaa